السلام عليكم أصحابي maanta waxaanu sharaxaynaa filim aad iyo aad u cabsi badan soo baxay 2007 laguna magacaabo 1408 intaan bilaabin ka hor waxaan ka codsanayaa inaad subscribe na soo tiraahdid mahadsanid filimku waxa uu ku bilaabmayaa Mike oo ah qoro sheekooyinka cabsida badan waxa uu tagayaa guri uu ku yaala magaalada gurigaas waxa degan baa leeyahay jin iyo ruuxaamo fara badan guriga ayaa uu tagayaa waxa soo dhaweynaya oday iyo xaaskiisii markii soo dhaweeyeen waxa ay siinayaan furaha qolka waxaanu ku yaala xagga sare ee tag waxa uu tagayaa qolkii habeenkii waxba kuma arkin sidii uu dhex joogay qolkii waxba kuma arkin waa uu iska seexday markuu seexday subaxnimadii waxa uu yimi library-giisii oo halkaas uu ku iibin jiray buugaagta dad fara badan ay ka iibsadaan buugaagta Mike oo fadhiya library-gii waxa soo jiitay hotel la yiraahdo Haunted Hotel sheekada ka jirtayna waxa ay ahayd qol hadaad geysid aadan ka soo noqonayn waxa uu go'aansaday inuu hotelkii tago oo sheeko ka soo diyaariyo oo buug ka qoro waxaanu go'aansaday inuu qolka kiraysto balse intaanu qolka kiraysan ka hor waxa ka horeysa inuu qaraaco waa uu qaraacay waxaanu u sheegay inuu qolka rabo balse waa laga diiday qolkii oo waxa lagu yiri qolkan lama kiraysto balse waxa uu ka wacay lambar kale isagoo oo raba inuu qolka kiraysto isla sidii markii hore kale waa laga diiday dhanka kale waxa uu wacay saaxiibkii Steve oo ahaa ka u daabaca buugaagta waxaanu u sheegay sheekada hotelka iyo inuu rabo inuu ka soo qoro buug waanu ka dhaadhacsiiyay imika waxa uu tagayaa hotelkii waanu diyaar garoobay gaariga ayaa uu soo raacay waxaanu yimi hotelkii waxa uu gudaha u galay hotelkii waxaana soo dhaweeyay managerkii hotelka waxaanu ku yiri soo fadhiiso markuu soo fadhiistay waxa uu ga sheekeeyay qolka sheekadiisa balse intaanu qolka sheekadiisa uga sheekeyn waxa uu sheegay qolkan hadii la galo qofkii galaa in aanu ka soo noqonin balse ma uu dhageysan hadalkii oo ninkii waa uu iska dhaga tiray waxaanu go'aansaday ninkii inuu furaha gacanta ka geliyo oo uu tago qolka uu doonayo ugu dambeyntii waxa uu soo baxay dhankaas iyo qolkii ayaa uu iska furay qolkana markuu soo galay waxa uu arkay inuu qolku iska cadiyay wax walbaana ay u dhameystiran yihiin qolkii ayuu soo fiirfiiriyay meel kasta waa uu ka soo fiiriyay waxa uu arkay in qolkan waxba la joogin balse intaanu qolka ka bixin waxa uu arkay muraayadii waa isku fiirfiiriyay daahiyadiina waa soo xidhay waxa loo shiday muusig qaylo dheer aad ayaa uu naxay meel walbana uu fiiriyay daaqadii ayaa uu iska furay ayuu eegay in meesha ay joogto waxa uu baxay dhankaas iyo gudaha waxa uu fiiriyay in meeshan ay la joogto balse cidna waa uu waayay waxaanu arkay albaabadii oo xidhan iyo meeshii meel kasta sideeda tay marba kasi dambaysa shanqadhu way ku sii weynaanaysay isaguna aad ayuu naxayay waxa uu tagay suuliga balse intaan suuliga korintay wuxuu sii hagaaji hiidka waxa uu arkay inuu xun yahay waxa uu wacay ku hagaajiya waxaana loo soo dirayaa ninkii hagaajin intaan loo soo dirin ka hor leedka ayaa tagay balse waxa uu watay qoraagani laambadii ayuu sii shitay intii loo imanayay laambadii ayaa uu sii baxaysay ugu dambeyntii waxa uu yimi ninkii hagaajinayay hiidka ninkiina wuxuu yiri qolka soo gelmaayay adan ku sheegayay halka taaba aan ku taabo oo hagaajiso waa uu hagaajistay ninkiina halkii ayaa uu shaqadii ugu qabtay uu iska tagay wuxuu yiri sariirtaada seexo balse waxa loo shiday codkii markii ugu hore qaylada dheeraa uu ka naxay waxaana loogu soo qoray saacadan in gabigiisa lagu soo gabadhayn doono 60 mirir aad ayaa uu naxay waxaan uu caray dhankaas iyo daaqada waxaanu soo fiirinay in magaalada cidi joogto balse waxa uu arkay gaari halka hoose maraya isagoo gaarigii ku maqan waxa daaqada ka dhacday faraha weyna dhiigtay wuxuu sir dhiigiisa maad isagoo biyo ku maadhay ayaa biyo kulul lagu soo daayay oo aad iyo aad u kulul waxa uu wacday dadkii fadhiyay hotelka halka koolka cidna waa ay ka qaban weyday waxa uu sir meeshan iskaga baxsan maadaama laga qaban waayay koolkii dhinaciyaal baa ku sir jabi waxa uu galiyay furihii ayaa laga jabiyay cabsida markii si dambaysa way ku sii xoogeysanaysay isaguna aad ayuu si naxsanaa waxa la tusay marka dambaysa dadkii meeshan lagu cunay oo raaxaamo ah aad ayaa uu cabsaday marka ka dambaysa waxa la tusayay rooxaamo kala duwan waxa uu yiri meeshan iskaga baxso isagoo baxsay isla ayuu ka dhacay daaqadii markastuu isla baxsana waxa lagu soo celinayaa isla qolkii waxa uu yiri xaaskiisa liili qaraaco isagoo qaraacay isla ay koolka saa ugu jiraan ayaa uu biyo xagga sare ka soo daateen laptopkiina waa uu xumaaday waxa uu jabiyay qasabadii biyo ka soo daadinayeen waanu gufeeyay waxa uu yiri carar oo meeshan ka baxso
baxso markastuu baxsay ilaana meel uu kalunba laga soo gelinaya qolka xagga sare ayuu gurguuranaya wuxuu islahaa imika ayuunbad qolkii ka dhacday ama ka baxsatay waxa lagu soo celiyay isla qolkii aad ayaa ugu yaaban yahay iminkana wuxuu talaagada furay talaagadan waxa uu ku arkayaa nafar hore oo la dilay oo rooxaan noqday dhanka kale waxaa la tusayaa isagoo oo xaaskiisa iyo intiisa la joogaa oo gabadhiisina xagan taagan tahay balse waxaan oo dhan waxa weeyaan rooxaama ay la hor dhigdhigayo waxa uu yimi qolkii waxaanu gubay wax kasta oo qolka yaalay oo sawir ah markuu gubay wixii oo dhan waa uu jiibsaday isagoo jiifa baraf dartii ayaa uu la seexday ama uu la dhacay isagoo dhinaca jiifa waxa uu maqlay laabtoobkii oo ay ka hadlaysa xaaskiisii liili waanu u soo cararay waanu dhegaystay waxaanu kula hadlay halkii waxa uu ku yidhi yaa i keenay aniga waxaan joogay New York ee xaggan yaa i keenay iyaduna waxaan oo dhan wuxuu moodaya wax runa balse waxaan oo dhan waa rooxaan waxa uu iska dhex arkay laabtoobkii iyagoo oo isla hadlaya ugu dambeyntii uu wiil jabiyay balse waxaan waxay ahayd rooxaan saas ayaa uu tuuray waxaanu jijibiyay wax kasta oo qolkii dhex yaalay waxaana qaaday daadkii markuu qaaday waxa uu geeyey bannaanka waxa uu soo kacay isagoo xilliga badda jooga oo ay afka biyo ka tufaya markii dambena waxa uu is arkay isagoo dhakhtar jooga oo ay xaaskiisii liili la joogto waxaanu ku odhanayaa aniga maxaa igu dhacay oo dhakhtarka la ii keenay iyaduna waxay ugu jawaabaysaa ma garanayo balse waxaan oo dhan waxay ahaayeen wax la tustusayey oo rooxaama ah waxa uu arkay qolkii uu ku jiray oo la burburinayo oo isaguna dawaaqsan yahay madaxa intuu qabsaday ayuu arkaya inantiisii rada Ketiya laabtuu gelinayaa balse markuu laabta geliyo waxaan inantiisiiba maaha ee waa rooxaan waxa layna tusayaa waqtigii loo qabtay oo in yar ay ka dharsantay iyo isagii oo dhulka jiifa waqtigiina uu sidiisii hore isku soo celiyay isaguna halkan fadhiyo waxa uu qaraacayaa dadkii hudheelka mas'uulka ka ahaa waxaanu rabaa in meeshan laga saaro waxaanu wacay dadkii cidna uu la hadlay balse cidna umay imanin ee waxa uu go'aansaday inuu meeshan ka kaco oo uu ka baxsado intaanu ka baxsan ka hor waxaa la tusay xadhigan uu isiri qoorta iska geli waxaa la tusay dadyoogii hore oo meeshan deganaa oo qoorta iska geliyey waxa uu hor istaagay miyaarad muraayadda markuu hor istaagay musmuu arkayn waxa uu qaraacay lambarkii waxaana laga qaban waayey ugu dambeyntii isagoon iyo jabsan ayaa uu halkii ayuu go'aansaday inuu gubo waanu gubay waxaanu shitay midh sigaara isagoo midhkii sigaarka cabaya ayay meeshii oo dhan gubatay isaguna halkii ayaa uu ku dhintay filimka intaanu dhammaan ka hor xaaskiisa ayaa joogta xabaashii ayaa loo keenay buugaagtuu qori jiray waxaana lagu yidhi xusuus ahaan u hayso balse iyadu way diiday oo ay ka qaadan weyday maanijarkii hudheelka maadaama ay ninkan hore u kala tageen filimkiina halkaas ayuu ku dhammaaday